gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid Ibraahin ayaa hadda ku dhawaaqay gudida taakulaynta dadka uu saameeyay wabiga Shabeelle ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid Ibraahin waxaan halkan ku magacaabay guddi dhexe oo ururisa qaaraanka loo gurayo beledweyn maadaama maalmihii aynu soo dhaafnay laga abaabulay dhammaan Soomaaliland qaaraan ururin gaar ahaan Burco Laascaanood Boorame si aynu qaaraanka u midayno guddi dhexe oo lagu soo wada ururiyo ayaynu halkan ku magacaabay waxa kale oo aanu wada hadalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna nagu booriyay hawsha inaanu gallo isaguna diyaar u yahay markaanu soo gabagabayno inay xukuumaddu diyaar u tahay inay si weyn oo miisaan leh uga qayb qaadato aanu ku ballansanahay caynka waxaan halkan ka sheegi doonaa magacyada guddiyada oo iyo shirkadaha ay ka socdaan runtii halkan waxaanu ku magacawnay dad aad looga yaqaan Soomaaliland oo khibrad u leh dhibaatooyinka dhacay sida loogu gurmado kana soo qayb qaatay masiibooyin badan oo ka dhacay dalka gudaha iyo dibadba had iyo goorna lagu yaqaano xasanaadka inay ka shaqeeyaan guddida Jamaal Caydiid Ibraahin oo gudoomiye ah xagga rugta ganacsiga ka socda Kayse Shukri Jaabac oo xubin ah Daryeel Maxamed Axmed Faarax oo loo yaqaan Food Sheekh Ciise Maxamuud Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ka socda Dahabshiil Group Sheekh Maxamed Cali Geedi Sheekh Axmed Aadan Buuxane Cabdi Wahaab Maxamuud oo Talasam Group ka socda Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed حسن أحمد حسين والله يقانو حسن بلبل وسنك الصعدة سون باور سلطان أحمد حسن جامع علي إبراهيم عيسى علي ورابه وكالصعدة قدوميها ورابه جروب شيخ محمد آدن عدولة دكتور فرحان ليبان أحمد وإسناه ليبان كمباني شيخ عبد الرحمن أبو أحمد أبوان يوسف شاعر يحمس عمر كوتشوك waxaa halkaa ku jira oo ka tagay Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed oo haas petroleum dhanka kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubnaha uu soo magacaabay guddidani walaalayaal waxa waajib inagu ah dadka maanta walaalaheen ah inaynu u gurbanno qof walowbana sadaqada ha yaraysanin waxa weeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra war naarta iska xajiya timir jeexeed وحويان صدقة وبلاي حجاب مصايبات كوريجية وحيالها إلى هاي نقد دفاعي وحكم إذا الصدقة عظيم عيد والبوي كل عكرته إننا عبارين وقدعي ولهذا السبب ضد كمسلمين تي وولا إنما المؤمنون إخوة إلهي سبحانه وتعالى ينوشك إن ندور على النهاية دين تو حي سكوت مع وادي الله وادي الرسول إن إلهنا لا ضيعه نبينا لا ضيعه إلهي ما ينوشك إنه وراء النهي ولهذا السبب قفك مسلم كعاد هدي مدحو بني أي حنونتو تشير قرين وضلانه مثل المؤمنين كتوادهم وتراحمهم كجسد واحد تذكر مسلمين تي وتشير قرى هدي تشير كحبني حنونتو تشير كأنت كلو حنون صدا ولهذا السبب وحب الدوين كدعي إننا وين ودعي تيجي متينا إلهي سبحانه وتعالى هون حريصته inta kalena waxaanu magaranaysaa ku boorinaynaa inay samraan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka dulqaaday mar saddexaadka waxaan leeyahay marka ugu dambayn haddii aan ku soo magaranaysaa dhawaado sadaqada culimadii baa ka sheekaysay waa wax waajibo oo ay dadku isku leeyihiin muslimiintii iyadoo bini aadanka oo dhaniba magaranaysaa lagu gurman karo gurmadka aynu u fidinayno beledweyn iyo khatarta ku timiday وواحد هرمر سرنا وي ودنتنا iyo waxtarkeena aakhiradeenna iyo adduunyadeena ba aynu ku hagaajisanayno saadaradeed shacabka Soomaaliland ee kala duwan ugu horeeyaan ganacsatadu culimada diinka salaadiinta dhalinyarada dumarka bahweynta shaqaalaha Soomaaliland waxbarashada kala duwan dugsiyada sare jaamacadaha muassasaadka khayriga kuwa gudaha iyo kuwa marka waxaan jeedaa localka iyo kuwa internationalka waxaynu u baahanahay dhamaantii inaan ka qayb qaadano
qof walowba bal waxaad qiyaastaa dadka aad ugu jeceshahay aad dhashay ee bogsiiyey maanta oo dhibkaasi haysto wixii haysan lahaa iyo wixii aad jeclaan lahayd in lagaaga gurmado. xamse maxamed muuse cawke Real TV Hargeysa.